hayalka baxabaxee dhulkii barakada lahaa ayaan kugu beegayo inaan booqda rabo hoda boqotay xidhee bashiir maahure walaa talladhiga kay badan yaa rasuulallaahi yaa xabiiballah. qaar ka mid a guddida ururka Tabantaabo oo ka shaqeeya horumarinta degmada Sawanaag ayaa kormeer ku tagay iskuulka hoyga ee Qotal Weyn waxaana halkaas ardayda kala hadlay una ka mid ah guddida ururka waxaana uga warbixiyeen waxyaabihii uu daaranaa socdaalkoodu oo bishaarooyin iskaga badnaan doona insha Allah tacaala. waa midda koowaad ee kulli ardayda ayrka ayaa bariyaha waxayna soo weydiinayeen foomamkii ayrka marka waxaan ugu bishaareynaa marka ugu horeysa inaynu u sidno foomamkii ayrka maanta insha Allah tacaala buuxbuuxin doonaa isla biri toolana wasaaradda waa u geyn doonaa waa la xarayn doonaa marka idinku marka idinku soo wareegaya dadaalku iyo sidaad maxay ahayd marka aad ula tartami doontaan ardayda badan ee kumanaanka ee Soomaaliland oo dhan imtixaanka ka galaya marka taas horta waa bishaaro. waxa kale oo iyadana aan idinku bishaareynaa kulli maalintii iskuulkeen dambeysay halkaan aan idinku nimi anaga Sheekh Maxamed Waris iyo kulli xaaladaha nafartan waxa kamid ahaa xagga sportska kale ardaydu aad u xiiseenaysay marka iyagana waxaan ugu bishaareynaa siibahan waliba wiilasha inuu arday kasta uu heli doono maxay ahayd diriskiisii garmaantii iyo nagsadii xaalahaas lagu ciyaarayay arday kasta uu helaya yar iyo weyn kubadiina insha Allah tacaala ay weyn oo yaalaan iyaguna waliba taangadii fiicnayda marka iyadana waqti kasta la wada ciyaari maaye waqtiyada macallimiinta ay la garato insha Allah tacaala. waxa kale oo iyagana aan ugu bishaareynaa haddana kaba horeysiiyo qolada kubadda ardayda tartankii Quraanka Kariimka boodhanka ka socday ardayda kaalmaha hore galay 6 arday ee kaalmaha galay iyagana qaybaha kala duwan ee jusaska iyagana jawaastooda weysidnaa insha Allah tacaala iyagana way siin doonaa doorka insha Allah tacaala xafladooda iyadana qabsan doonaa. xagga kubadda qudheeda de kooba kulli macallimiinta ay qabatay iskuulkaas oo gudihiisuna ahaa ka socday iyadana koobkii maanta insha Allah tacaala qolada badisay aynu guddoonsiin doonaa koob dahaba ay guddoomi doonaan qoladaasi oo ay haysan doonaan ilaa inta lagala wareegayana de kooxdaas haysanaysa marka taasina runtii waa bishaaro kale. waxa kale in ducayn doonaa qof kasta oo dugsigan horeysay dambaysa wax gashaday oo ugu dambeeyay Xaaji Cabdullaahi Carab Ismaaciil iyo dhammaan xubnaha kale qiimaha badan waqtigooda baalul baydii manayay inta guryahoodii idinka soo tagaan idinka sidii wax u baran lahaydeen ilaahay baa laga helaa aynu ducayno idinka saal idin faray akhlaaqdii la maamulkii macallimiinta iyo cilmiga lagu kala dheereenayaa sida cilmiga ugu dadaali lahayd waqti u siin lahaydeen 10 sano kadib nimankiina waxaan arki doonaa idinkoo dhaqaatiir iyo injineero iyo culimo qiimo badan idinka soo bixin hablo iyo wiilalba insha Allah. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa idin leeyahay dadaalka xoojiya sinu ogsoonahay waliba ardayda ayrkan aad ula hadlayaa waxay nagu soo fool leh imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxaanu doonaynaa anagu idinkoo ilaahayna tala saaranaya dadaalkiinana xoojinaya inaad kaalmaha u horeeya ka gashaan imtixaanka shahaadiga laga qaban doono jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ilaahay ka dhigo. waxa weeyaan markay xigtaan waxaan mahadnaqayaa ururka Tabantaabo oo ay ku xigaan macallimiintayadu waxa weeyaan inta hadan kaga imaado waxa halkan noogu keeneen qalabkii sportska haday tahay barihi iyo haday tahay kubadihi iyo haday tahay sportski garamaan marka waxa weeyaan ilaahayna ka jidaysiyo waxaan kaloo halkan mahad labaad ugu celinayaa Cabdullaahi Carab oo noo dhisay 2 qol oo wanaagsan ilaahayna ka jidaysiyo cid ulaniyo waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa ardayda saaxiibada nahay iyaguna halkan la soo qayb galay barnaamijka marka waxaan leeyahay halka dadaalka ka sii wada habeen iyo maalin ba heegan baa leedin yahay haday Tabantaabo tahay haday macallimiinta haday macallimiin tahay iyo haday cid waxaana tartan soo xiran qaar ka mid ah ardayda kuwaas oo ku tartamayay Quraanka Kariimka iyagoo abaalmarin guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore galay نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا waxaan noo soo gabagaboobay
tartankii qur-aanka kariimka ahaa oo aanu ku guddoonsiinayno jawaa'ista ardaydii kaalmaha hore ka gashay dugsiga qotonka weyn. qur-aanku waa xablullahi almatiin waa xadhigga ilaahay adag wa nuuruhu lmubiin wa siraatuhu lmustaqiim. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadcu bihi aakhariin. ilaahay kitaabka qur-aanka ah dad buu sare ugu qaadayaa bartay ku camal falay kuna dhaqmay. marka insha allahu tacaala maanta waxaanu jawaa'ista guddoonsiinaynaa ardaydii kaalmaha waxa weeyaan gashay ayadoo waxa weeyaan isreebreeb adag ay soo galeen. waxa weeyaan ardaydu markay tartan gashana dee waxa weeye cidun baa guulaysataa. hadday laba faras baratamaan midun baa dheeraynaya. marka ardayda maanta guulaysatay waynu hambalyeynayna waxaan leenahay maasha allah. waxaynu maanta insha allahu tacaala joognaa dugsiga boodhanka qotonka weyn. waxaynu u fadhinaa runtii waxa weeyaan jawaa'istii iyo abaalmarintii ardaydii ku guulaysatay waxa imtixaanka iyo tartanka qur-aanka kariimka. dee maanta insha allahu tacaala ragga noocaasa ayaynu abaalmarinaynaa. waana insha allahu tacaala waxaan filayaa inaanay noqon doonin intii ugu horreysay tii ugu dambeysana aanay noqon doonin insha allahu tacaala. marka guud ahaan ardayda maanta waxa weeye aanu abaalmarinaynaa waa 6 arday. ardaydii kaalmaha ka gashay dugsiga qotonka weyn ardayga kaalinta koobaad ku guulaystay magaciisu waxa weeyaan Axmed Cabdi Saciid falyatafadal mashkuuran ma'juura. ما شاء الله ده إن شاء الله ما شاء الله لا خير ما شاء الله. waxa farxad inoo ah inaynu soo gabagabeynay koobkii ka socday ardayda iskuulka uu socday iskuulka qoton weyn degmada Sabawanaag gobolka Maroodi Jeex. runtii farxad weyn ma noo tahay in ardayda kala soo qayb galno haddaan hawrka tabantaabo annagoo runtii dhiirigelin uga dhigayna garoonka oo runtii aan wax ka bedelay hadday tahay birihii iyo hawlo kalaba haddii ay tahay دريسكي يسبورتس جاي كعيارين أرضيدو بيتهاي كبديه كوبكي رنتي فرحدوا بين نقطة هاي ضد ضنا رنتي حولها نجلا شقيين أديات بينكم هذا نقينا وحكم ده أجسمها وسارد لأن يردي عيارها عبد الرشيد وحكم ده حلبان شمال الديرية وحكم ده محمد وريس الشيخ محمد وريس إبراهيم الشيخ تمويني iyo cid kasta oo runtii inuu hawsha nagala shaqeysayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ardayda runtii xanja dhalinyarada ciyaartay kubad fiican bay runtii soo bandhigeen ciyaartooda ugu dambeysay runtii kala soo qayb galay ciyaar fiican bay runtii soo bandhigeen oo akhlaaq wanaagna leh kooxda guuleysatay waxaynu siin doonaa iyadoo la wada guuleystay koobka aynu guddoonsiin doonaa sidoo kale bilaadaynu bixin doonaa ardaygii ugu akhlaaqda wanaagsanaa amba ciyaartoygii ugu akhlaaqda wanaagsanaa maxay ciyaartoygii ugu ciyaarta wanaagsanaa iyo ciyaartoygii ugu gool dhalinta badnaa iyagana bilaadaynu siin doonaa waxaan balyeynaa qooda ku guuleysatay koobka waan u hambalyeynaa waan la wada guuleystay marka waxaan leenahay hambaliyo haniyan lakum baan leenahay intaasaan oran lahaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh